بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan isugu nimid inaan warbixin in ka siino weerarkii maanta ka dhacay saldhigga degmada Wardhiigley. annagoo shir leh yaa waxaa noo yimid dadkii shacabka ahaa ee maanta warbaahinta ka wada daawateen ayagoo la jir dilayo, ayagoo la maaragtay qutinayo, ayagoo ciidan ka tirsan ciidanka booliska gobolka Banaadir ay garaacayaan. eheladoodii aa noo yimid, waxay naga codsadeen in aan u muujinno garab istaag. waxaan weydiinay sida aan garab istaagga ugu muujin karno. waxay dhaheen dadkii ayagoo dhaawacan oo la garaacay oo la jir dilay, weliba odayga waayeelka ah nin cudurro badan qaba uu ahaa, saldhiggii nala taga, nala soo damiinta, isbitaal nala geeya, idinkaa laga yaabaa inay wax inka maqlaan. saldhiggaan tagnay. saldhigga markaan tagnay, ninkii taliyaha booliska gobolka Banaadir ahaa Macalin Mahdi oo odaygii soo afduubay oo meesha uga hadashiinayo yaan tagnay. waana la sii hadalnay. waxaan u sheegnay inaan u soconno booqasho iyo dadkaas in la damiinto, isbitaalna la geeyo. sababtoo waxaa ogtay annaga waxaana dhibay dadka ayagaa cabasho noogu yimaada, ayagaa la barakiciyaa, ayagaa la dhibaateeyaa. annaga maxkamad un baan nahay, meel dacwada iyo dulmiga laga soo aado un baan nahay. waxaan nidhi dadka inaan booqannaan rabnaa. iridda saldhigga u xirtay, ciidankiisana wuxuu amray inay xabado ridaan. xabadaha markii hore koray u dhacayeen, annaga danka ma gelin, maadaama ujeeddadaan u soconno damiinta ahayd naloo diiday inaan shir jiraa'id ku qabanno. saldhigga hortiisaan go'aansannay, xabad ayaa nugu bilaabatay. waa ayaan darro. annaga ciidankeenna waxaan farnay inaysan ka jawaabin, laakiin xabadda way sii socotay. waan ka soo tagnay meesha. waxaan isku daynay shirka jiraa'id inaan ku qabanno halkii dadka laga barakiciyey oo odayga waayeelka ahaa maanta lagu jir dilaya. way nooga daba yimaadeen. waa la socotiin warbaahinta, waa joogteen. mar kalayna xabadeeyeen. waxaa ayaan darro ah marka in madaxweyne xasan sheekh xamuud asagoo maanta New York u jooga inuu ka qayb galo shir qaramada midoobay asagoo matalay magaca Soomaaliyeed, aan suuqa Siinaay lagu xabadeeyo eheladii dadkii maanta la jir dilay iyo dadkii mas'uuliyiinta ah, qaar xilka ugu horreeyeen, qaarna xilal kala duwan ee dalka ay ka soo qabteen, inuu ciidankiisii nagu xabadeeyaan. ooba wiilka taliyaha saldhigga, taliyaha gobolka Banaadir Macalin Mahdi la yidhaahdo, oo mishinkaasna mas'uuliyaddiisa oo leeyahay. dadka annaga aan booqanaynay oo soo damiinaynay waa dadkaas. waa dadkaas la dhaawacay, oo odaygaas waayeelkaa la qutinaaya. siyaasad ma ahayn, doorasho maaha, dastuur maaha, waa dadkaas in loo gurmado. waa ayaan darro. madaxweynaha dhowr jeeraan ku nidhi oo kor ula hadalnay oo hoos ula hadalnay oo baaq u dirnay warrag waaweyn oo siyaasiyiina oo shalay saaxiibba tihiinaan dhahay, adeerow gacliyow aan kuu ducaynay, dadka siyaasiyiintaas siyaasadda isku qabsadaane dhulka naga dhex saar. maantoo dhan dhul iskuma qabsan karno. madaxweynihii wuxuu go'aansaday inaan 24 saac dhul isku haysano. tarabuunkay ka taagan tahay, shalay daynile ka taagna waa maqlayseen, maanta waa Siinaay, berri waa meel kale. waxaan sii marin ayaan darrada wasaaraddii caafimaadka oo dhulka la dhigay oo dad la siiyey, kuliyaddii caafimaadka oo dhulka la dhigay, wixii magaaladan hooyihii dhallaan xarun ku yaalleen dhulkay yaallaan. waxaan maanta isku hayna dadka soo in ogaadaan aan rabno siyaasad maaha, xukun maaha, doorasho maaha, dastuur maaha, waa dhul.
dhul dad laga barakicinayo masaakiina oo weliba dadka la barakicinayo waa dadkii madaxweyne xasan sheekh ay dad isugu dhawaayeen waa ehelkiisi waa xigtadiisi waa qaraabadiisi dadkaan u gurmanayn oon leenaha madaxweynuhu ka leexo oday waa yeela sida maanta loo dhigay qof soomaaliya oo damiir leh miyaa fiirsan kara soomaali dal iyo dibadaan weydiiyey odaygaa sida maanta loo dhigay ma si la fiirsan karaa oo aan guri uga jiri karnaa maaha inaan baxno waxaan ugu kalifay waa wax dhacaya waay ra-iisul wasaare khayraa inii sheegi doona waxa la gubay waa baabuurkiisa waxa la dilayna waa istaafkiisa sheekh shariif hasaa sheegi doona baabuurkiisa iyadoo xabad weyn ku taallo ilaaha ka bixiyey waa taas dhashiiko waay marka annaga waxaan la damqanayna waa dad guryahana waa iska joogi karnaa xashaq markuu xil ka dhammaadane waan qabsan karnaa laakiin waxaan maanta isku hayna maxay tahay waa dadka masaakiinta oo inta la barakiciyey xuquuqda markay u doodaan la jir dilaayo meeshay ka dhacdo annaga waa tegaynaa aan ku noof weyna haddaan rabno waan sakaxumahay annagii asagii ragga meeshaan taagan horaanna loo xabadeeyey 19 febraayarna la xabadeeyey waa ogtihiin annagoo suraaladii jeexjeexayina halkaa shir jiraad ku qaban soo lama socotiin asaga iyo sheekh shariif subaxaas waxaa lagu xabadaynayey hotel maa'ida habeenkaas waa ay soo wacay waa xasuustaa cabdiraxmaan wuxuu yidhi wax kastoo dhaco mudaaharaadka berihiisu istaagin madaxweynaha waxaan xasuusinayaa mirnaayo markan ku jirana waa ay soo wacay 1 kilomitraa lii jira u dhahay culayska ha layga qaado xabadda horta waa tii asagay dil laheed haddaan annaga xabad ka baqayno sidiisoo kale asagaa ma ka liidana asba kama baqin waa kafilada soomaaliya maanta dhex fadhiya laakiin waxaan ku kala duwannahay farmaajo maalintaas extension iyo doorashaan isku haysanay xasan maanta maxaan isku haysannaa dhul iyo odaya waayeela eelkiisa oo la barakicinayo hadday qof damiirle meeshaas ku hartay yah oo ehelkiisaa ninkaas oo qoyskiisa oo reerihiisa oo faamilkiisa oo ilmihiisa ah oo qaraabadiisa ah oo xisbigiisa oo kooxdiisa ha u caqli celiso soo lama socotiin wasiirkiisa difaac inuu nahandaday oo yidhi yuhuud maatiinaa ka dhace maantaan haynaa ma haynaa mise ma hayno yaana soo xabadeeyey waxaana soo xabadeeyey ninkii wasiirkiisa difaaca oo yidhi yuhuud maatiinaa ka yeersiinaa maalintaan lahay siriyasaan u qaadanaynaa dadka waa sahlanaya marka waxaa ogaanaysiin waxa dhacay waa saas wixii kaloo faahfaahina odayaasha kale uga tegayaa